السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. وماanta waa maalin maaragtay waa maalin waa maalin waa maalin qabiisa oo ay bisha tahay 6 November 2025 subax wanaagsan nin kastaba saacada u tahay wanaagsan. Allahumma salli ala Muhammad. Ilaahu waxaan sheegayno ilaahu run ka dhig, ilaahu rabbiga dadkii dhintoo dhan u naxariiso, ilaahu waalidadeedii iyo kuwii nolol dhashay iyo kuwii nadalay iyo ummadda nebi maxamed oo dhan ilaahu u naxariiso, ilaahu wixii buka caafi, ilaahu nin kastaba muraadkiisa u macsiyad lahayn ilaahu sii rabbigayow. intaa kale aan ka imaado halkan waxaan maaragtay rasulnimo igu soo beeray, warbixin igu soo beeray. waxaan ka hadlayaa dadka xidhan oo 34 qof weeyaan ee laga qaaday Lughaya iyo magaalada maaragtay Gaarisa. 11 qof waa Samaroon, 27 waxa weeyaan 27 maaragtay waa Ciise. dadka waxay ku xidhan yihiin aqal uu ku jira aqal Saciid Axmed Kushin ayaa ku jira. haddii maaragtay la soo sii daayna dee oo ila soo hadlay uu soo sheegay, laakiin dumar baa ku jira, ciyaar 15 jir ku jira, 14 jir baa ku jira, 16 jir baa ku jira. waxay u xidhan yihiin nin la yiraahdo Cabdi Khayre Dugsiye oo naanistiisa ay tahay maaragtay Arroweelo oo taliyaha gobolka maaragtay Awdal. ninkaas waa ninkii maaragtay aqalkiisa hay tiktokerada Zaylac kolkay ku soo duuleen dadka tiktokerada ay gabadhu ku jirto habluhu ku jiraan aqalkay fadhiyeen. nin kale weeyaan waa aqalka labadii goorba hay fadhiyeen dadka tiktokeradu. ninkaasi waa nin dowladda Soomaaliya u shaqeeya, laakiin waa nin mucjiso ah. ninka dadka inaan laga bartaan doonaya. ninka dhibaatada maaragtay gobolka silal ka wada waa ninka Cabdi Khayre la yiraahdo Dugsiye oo naanistiisa tahay Arroweelo. dadka waxaa laga doonayaa xidhan. waxaa la leeyahay dhagax tuurkii ka dhacay magaalada Lughaya iyo lacag gaaraysa $50,000 bixiya buu leeyahay. dukaana ayaa la dhacay. dukaanada ku yaala Gaarisa magaalada la yiraahdo ee Vaaleerku uu yahay 4 dukaan buu sheegay $50,000 alaabta dhex taalay ayuu leeyahay. kolkaasi waxaan la hadlayaa dadkii ka soo jeeday gobolka Salal ee magaalada Zaylac, Lughaya, Gaarisa, Qabri Baxar inta ka soo jeeday ee hadday xildhibaano tahay, hadday mas'uuliin tahay, Ciisaha ugu sareeyo wasiirka Ciisaha ayaa halkan kala hadlaya ee dhalinyarta. arrinta haddaan been sheegayo been baa sheegaysaa dhe 34 qof dad gaaraya oo hooyo leh oo aabba leh oo ciyaal yaryar leh ayaa ku xidhan jeelka Boorama oo xitaa cuntadu hay goobti ku tahay oo loo diidayaa. ninka ka dambeeyana waa ninka gobolka haysta Boorama ee laga yiraahdo Arroweelo la yiraahdo. arrinta in la soo farageliyo oo hadday ugaas ka tahay, hadday dadka magaca Ciise sheeganay tahay ay soo farageliyaan, hadday magaca dawladda dadka sheeganay ugu sareeyo madaxweynaha Abdiraxmaan Cirro, wasiirka arrimaha gudaha. dadkaasi daraatoole dad baa la qaaday, dad baa 2 toddobaad in ka badan xidhan. wasiirka arrimaha gudaha warumahayo waxa ilaahay baa la hortagaynaa inaan nooga soo sheegay Lughaya iyo Gaarisa iyo agaarkayga inaan lagala soo hadlay ayaan ilaahay la hortagayaa. haddaan been sheegayo ilaahu iga raali noqo. haddaan run sheegayana madaxweynaha toos ugu tagta arrintaasi lacag gaaraysa $50,000 dukaanada ku yaala Gaarisa waad ogtihiin ee Vaaleerku uu yahay $10,000 hay dhex taalo waa dukaanadii ee Gaarisa ku yaala. ma jiingadaha 4 jiingadood ee 4 maaragtay 4 xaraleeyahay yaalin ayaa dadka in laga dhaliyo la doonayaa lacag maaragtay xeer ahayn oo ninkii gobolka ugu sareeyay degmada Boorama uu doonaya inuu ka dhaliyo ninka la yiraahdo Arroweelo. gaashaanle sare Arroweelo ninka la yiraahdo. ninkaas waa ninkii aqalka tiktokeradu ku Zaylac tagay dhibaatada ka wadeen aqalkay joogeen weeyaan. nin kale aqalkay joogeen ay ku dhuubanayeen ee loogu tagi lahaa ee askartu ugu tagi laayeen waa ninka aqalkiisa ee Zaylac ku yaala. ninka taswiirtiisana halkan baa soo dhigi doonaa. arrinta hadday ugaaska tahay, hadday aqalada tahay, hadday jeef aqalada tahay, hadday dad dhaqan leh oo ilaahay nabigu garanay hay tahay oo odayaala oo ka soo jeeda isaaq hay tahay, arrinta inaad soo faragelisiin dadkaasi
ودباتو وحكدا عيا دونك وانك أركايا ظلمك هل جوجيو هل جوجيو هل جوجيو شال الظلم بلقى عملنا وصومال لدوان قنا لها أول هين ما أنتنا ضد أنت أو عيش كجرة أحرن نكا الرويل أحرن أرنتها إلى نجسو بكسيان دون إننا هدان نهاي ضد الصوماليات إكسو جدا قول كسلل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته